magaalada Muqdisho caasimadda dalka gaar ahaan Masjid Nuur ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegay dhalashada rasuulka xilli wili aan ku guda jirno bisha Rabiicul Awwal oo ah bishii uu dhashay nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen jamaacada reer Sheekh Daawud Culusow gaar ahaan xarta Sheekh Cabdisalaan Sheekh Xasan Sheekh Cabdirasaaq ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan sida culimada diin dhalinyaro haween waxaana munaasabadaasi inta ay socotay culimadii halkaasi khudbadaha ka jeediyay ay ku dheeraadeen ka hadalka taariikhda nabiga iyo sifooyinkii wanaagsanaa ee uu lahaa haddii nabiga calayhi salaam ma laga waramaa leeyahay حتى هل صفة أو من صفاته حتى صفات النبي عليه الصلاة والسلام وحصري هو اللي سوكو بكرم الله بلا نهاية انت أدوية جرت إيه انت آخرة جرت وحكا الصعون رماد لهين انت جيران هل صفة أو نبي صفات كيسة كميدة أيال لغا هضلا إن اللي يراد عدل ما يكرتا مجر وأكتهين وحال الله وحاوى النبي عليه الصلاة والسلام إن جعلانه oo jacaylkiisa wax walba aan ka hormarino nafteena iyo maalkeena iyo ehelkeena aan ka hormarino qofka ma jeclaa kartid hadii aadan aqoonin wax aadan aqoonin lama jeclaa karo laakiin maanta marka laga sheekeeyo oo nabiga kaleey salaatu wasalaam siiradiisii laga sheekeeyo sifaadkiisii oo khalqiga ah oo mistahay laga sheekeeyo sifaadkiisii oo khuluqiga ah oo yaani dabeecadiisii laga sheekeeyo waxa waaye wax weyn ayaa ka kordhaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam bishaan uu ku dhex dhashay nuurkiisi iyo iftiinkiisi ilaahay wujuudkan u soo daahiriyay mugdigii zuulitaankiisana dhalashadiisa uu ka bilowday oo markii hooyadiis caloosheeda uu ka soo baxay kharaja macahu nuurun iftiimaa la soo baxay inuu mugdigii dhamaahay calaamad u ah isla bishaan nafteedana ilaahay uu ku oofsaday علامة إلى هاي محبة سيدنا بلال بن رباح مركي نبي أو أنت أنت ما بجوجي كريو يربسوا لا بتيساك عضي بيت المقدس والدقي في المنام بعد أيام النبي وارك عليه الصلاة والسلام أو كير من الزيارة يسدميها بلاله الصلاة والسلام وهردي واي هبين إسلام تحجر محكو دار النبي قايس وباغضو يراني فريم إيال هدام بحا أرهبين واي maxaa dhaqaajinoo haya hilow ahay hilow jacayl udugii nabiga sanka ka galay xayaatadii nabiga oo la noolay ayuu xasuustay سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا سيد كين محمد عليه الصلاة والسلام dadkoo dhan kan ugu wanaaga badan ayuu ahaa xagga abuurista iyo xagga dabeecadaba sida ilaahi uu abuuray iyo abuuristiisa iyo jamaalkiisa sallallahu alayhi wa sallam ahsana an-naasi ayuu ahaa xagga dabeecadiisa soo dadka ula dhaqmaayeen wuxuu ahaa ahsana an-naasi dhinac walba markii laga fiiriyo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam amaan waxa ku filan aayada ilaahi uu ku yiri fi suurati al-qalam wa innaka la'ala khuluqin 'azim inta ay socotay xafladan ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay qasiidooyin aad u macaan salliga rasuulka iyadoo dadweynaha xafladaasi isugu yimid wajigooda laga dheehanayay sida ay ugu faraxsan yihiin inay ku kulmaan xuska nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee أعطاك ربك ما لم يؤته بشرا من الأنام فكل منك ولد على خير الوجود ومن سأدى الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي الف صلى الله
خير الورى مشافع خير الورى الله كشمس بدأت جاه وفي رفعنا نجم السماء وفي رفعنا نجم السماء نبينا حمد إياك أن تجهلا وأبهج أبلج وأفلج أجملا. sidoo kale munaasabadan inta ay socotay ayaa qaar ka mid ah xerta jamaacada reer Sheekh Daawud waxay luqado kala duwan ku soo jeediyeen siirada nabiga waxaana ka mid ah luqadahaasi Ingiriiska, Turkiga, Sawaaxiliga iyo luqado kale. As we know, our Prophet Muhammad was the founder of Islam. Most of his early life was spent as emergent. At age 40, he began to have revelation from Allah. Beşuş etmiş bir Mekke'de dünyaya gelmiştir. Doğumdan önce babası Abdullahi 6 yaşında annesi kaybetmiştir. Kikamilivu kilianza tarehe 1101 Januari. Jamaacada reer Sheekh Daawud Culusow oo ka mid ah jamaacadka Islaamiga ah ee dalka ugu faca weyn ayaa tan iyo bishan markii ay dhalatay qabanayay munaasabado aad u ballaaran oo lagu weyneynayo dhalashada suubanaheena Muhammad waxaana sidoo kale jamaacadu ay qorsheynaysaa in munaasabado kale oo hor leh ay qabtaan. Cabdisataar Xaaji Cali, shabakada caalamiga Al-Mutaxabbuuna Fillaahi, Muqdisho. سيد فوق السماوات تستمع ليلة أسرى